kubadda cagta Centennial Park halkaas oo ay isugu yimaadeen dad aad u badan waxa bilaabanaya ciyaarihii kama dambaysta ahaa oo dhexmariyay labada kooxood ee Banaadir iyo Twin City ciyaartooyga ka yimid waa Minnesota dhaliyada ka timid dhar qurux badan bay qabaan calanka Soomaaliya macallimiintii iyo tababarayaashii ayaa la socda dhalinyaro yar waxa arkaysaa dad badan inay goobta isugu yimaadeen isdooda kale dad badan baa ka soo qayb galay fagaaraha weyn oo ay isugu yimaadeen dadkan faraha badan oo arkaysaa inay tahay dad aad u qurux badan la socotaan ciyaarahan waxay socdeen muddo ka badan 26 sano waxaana ka soo qayb galay sanad walba dad badan oo ka kala yimaada caalamka daafihiisa muuqaalka Soomaaliya oo toos ka imaanaya bartamaha Toronto gaar ahaan gegada weyn ee kubadda cagta Centennial Park oo ay ka soo qayb galeen dad aad u badan quruxda bilicda iyo fagaaraha dadka isugu yimid baa dhamaantood arkaysaa inay ka muuqato xamaasad soo dhaweyn iyo reereyn iyo waxa badan si kastaba arrintu haatee dadka halka isugu yimid baa moodaa in ay ka muuqato waxaan ka maqlayn saxaafadda Soomaalida sida kuwa caalamiga ah Somali Cable uu kamid yahay iyo kuwa kale oo runtii dhamaantood halkaas qurux badan uga soo qayb qaatay si kastaba arrintu haatee dadkan faraha badan oo goobta isugu yimid baa waxay yihiin kuwa ayagu aad ka muuqato inay arkayso inay yihiin kuwa loogu talagalay in ay ciyaar qurux badan hordhigaan dadka faraha badan isugu yimid waxaan leenahay hambaliyo ayaan leenahay guddiga ciyaaraha kubadda maamula ee loo yaqaano Today oo runtii ka muuqato ciyaar qurux badan waxa dusha magaalada ama garoonka duulaya garoonka muuqaalka Soomaalida oo picture iyo filimo qurux badan ka qaadaya si aad arkaysaana dadku ay aad u jeclaysteen waa mar kale muuqaalka Soomaalida oo toos ka imaanaya gegada weyn ee kubadda cagta ee Centennial Park waa tahay daawadayaal si aad u jeedaan ciyaaraha ayaa ka socda gegada weyn ee kubadda cagta ee Centennial Park oo dad badan ay isugu yimaadeen kana soo qayb galeen waxaad arkaysaa dadka isugu yimid maanta inay yihiin kuwo si weyn u tixan ama u safan waa tahay daawadayaal haddana waxaan jeclaan lahaa waxaan u helay fursad laba ka san dhalinyarada maxaad ka leedahay ما شاء الله السلام عليكم دمان انتنا داونayso waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Maxamed beesha codka beesha maanta waxaan joognaa Centennial Park ay soo qaban qaadeen ciyaarihii specialka ahaa ururka Today dhalinyarada oo aad isku xilqaamay ciyaaraha inoo suurtageliyay waxa final isugu yimid Banaadir iyo Minnesota I hope in ciyaartii ku dhamaato ciyaar wanaagsan iyo maaragtay dhalinyarada timidna u jeedaan waata cabdi saaq maxaa ku diraysaa intii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ilaahay baa mahadle fursadaad siisay maxamed ahir aad baa ugu mahadsan tahay waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan ururka Today ciyaaraha soo qaban qaabiyay dadka ka soo qayb galay ilaahay waxaan ka baryayaa halkan waxa isku soo baxay Minnesota iyo Banaadir waa teamkii home ka Banaadir waxa weeyaan waa home Toronto insha Allah waxaan anigu aad iyo aad maaragtay ugu faraxsan ciyaarta maanta qurux badan dhici doonta ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay ku dhameeyo nabad qab iyo bashbash iyo barwaaqo dadka maaragtay magacayga yaqaan aad baan u salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad ma santii cabdi saaq iyo faris waqtiina qaaligan siisaan daawadayaal waa mar kale barnaamijka toosan ka imaanay gegada weyn ee kubadda cagta Centennial Park san sheegnayba labada kooxood dhalinyarada ayaa soo baxay waa Banaadir iyo kooxda loo yaqaano Minnesota ama Twins ka timid markay ka baxdaa ayaan leenahay dad fara badan baa qurux badan baa ka soo qayb qaatay oo dhamaantood arkaysa inay yihiin kuwa u heelan inay u sacabiyaan ama la jira labada kooxoodna la hormariyo ujeedada Somali Week ma ahan ciyaar oo kaliya waa in laga qayb qaato barnaamijyo badan Soomaalida isugu timaado kumanaan qof baa ka soo qayb gala bil walba ama maalin walba ka soo qayb qaata waxaadna arkaysaa wax qurux badan oo dadku ay isugu yimaadeen inay tahay haddana waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero mid kamid ah waxaan la kulmay afayeenka kooxda Today maxaa ka leedahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Maxamed maanta waa maalintii ciyaaraha aan soo xireynay 2016 Somali Week sida u jeedina waxa isku soo baxay finalka koox Mareykanka Minnesota Twin City iyo Banaadir oo idaayo idamaqdeey daawada waxa u daran nin daalo dantiisu ay ka duruqdee wandaalay idaayo idamaqdeey daawada waxa u daran nin daalo dantiisu ay ka duruqdee haddaan duulo idilaawo waa tahay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin dadweynaha sharafta leh maanta isugu yimid gegada weyn ee kubadda cagta ee Centennial Park halkaan saad u jeedaan daawadayaal ciyaar qurux badan ayaa lagu soo bandhigay oo kama dambeystii waa Banaadir oo caawa wacdara dhigaysa iyo Minnesota oo ayaguna aan ka liidan waxaan jeclanahay dadweynaha inaan aadino wax yar dhinaca waqooyiga garoonka Mukhtaar Maxamed Axmed Dato Cuti waxaan ku xusanaa namarka 10aad kooxdii Batroolka nin caan ku ahaa iyo qaranka intaba
marka uu kubadda ay isagii maxamed ismaaciil isu dhiibayaan qaranka waxay ahaan jireen runtii rag Afrika iyo Carabaha iyo caalamka oo dhan ka tilmaaman ama ka amaanan Mukhtaar muddo 30 sano laga joogo ayuu bilaabay ciyaaraha waqooyiga Amerika in lagu qabto saad u jeedaana garoonka ayay soo galiyeen saaxiibadiis ayuu ku soo dhaweynaya waa asaasiyaasha ururka Today oo muddo dheer aad arkaysid in uu ahaa nin caan ku ah Mukhtaar Maxamed Axmed ku soo dhawaad dadweynaha salaam السلام عليكم دمان بدك شرفت له السلام عليكم دمان بدك سابق العياران سومالي ويغا آدي آدو تربضان ومحسنتهين رنتي عياران وحاول تلقلني دلنا سوماليات إن مالان سكوي مادين سنة كسوا سكو أركان رنتي سكو برتان آدي آدنا وحان كلو آدو مهد علينا يا أورك توداي iyo dhamaanba TV da soo galay batro waxaan mahad celinayaa dadkii soo galay dadweynaha ayaa aad u mahadsan runtiina aad iyo aad noo tookuleeyo ceeraan laantoodna soo karin runtiina waxaan rabaa oo kala halkan ku soo dhaweynayaa dhamaanba dadkii yimid oo odayaasha ayagana martida sharafta leh marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waata aad iyo aad baa mahadsantahay Mukhtaar Maxamed أحمد دته مختار عتي أو وذكرنا إنسان هذا أنا وعن جعلنا إن محمد إسماعيل وكلمة يراهدو محمد إسماعيل علي وكوبي طبعا كوحدة هرسات عوية مالين كوحدة أنا تفاسها وها محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأولين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من اتبعوا هداه يوم الدين أما بعد أحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله صومالي هنولاتو أمد الصومالية هنولادان هاي سرعان ولبا idinkana noolaadaan leeyahay sharaf waxay ah inaan maanta aan ka qayb galo ciyaaraha amba caawatan u joogno oo finalka gabagabadiya ururka Today ee qabteen runtii waxaan leeyahay dhammaan si u dhan yihiin uu anta jeeyo gudoomiye u yahay aad baa u maasantiin waxaan mahad gaar ahaan aan u celinayaa shacbigan quruxda badan wiil iyo gabar oo ilaantood ba animation fiicnaateen baana qurux badnaateen aad baa u maasantii baa intii ka soo qayb gashay marti sharafta ciyaartooyda maxamed aadan baa noo joogo xildhibaan axmed xuseen aa joogo maasha allah saacad safiir waa joogaa laba safiir waliba waxaan leeyahay ku soo dhawaada anoo ku hadlaya magaca dhammaanba bahda isboortiga meel kasta ay joogaan ex sultan marka ku soo dhawaadaan dileeyahay ururka Today thank you very much aan dileeyahay antar iyo groupkiisa waa mahadsantiin sida sharafta leh aad noo soo dhaweyseen sanadba sanadka dambaysa waxaan u maleynayaa cirbadii suntaad nagu dureysaan waa idin soo soconaa diyaar baan dilanahay koobkaas aad aragtaan quruxda badan waxaan ka soo qaaday London baan ka keenay gaar ahaan xaafadda Streatham waxaana ugu deeqay runtii nin wiil dhalinyarada Soomaaliya oo ganacsata oo aan weligiis Kanada imanin weligiis ciyaaraha ka soo qayb galin markaan uga sheekeynay si naloo soo dhaweeyay iyo ciyaaraha sanad walba qabtaan sanad guuradii 26aad iyo markas sanadba sanad dambaysa inay ka sii fiicnaadaan mooyaane gadaalba ma socdaan saas awgeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu ii wakiisho koobkan quruxda badan aan ku guddoonsiiyo caawa gudoomiyaha ururka Today Abdulkarim عنتر جيو عنتر فياد بان وقانا عنتر جالو قدومي كوب كان قروح دبضان وعنك الصومالية وليبا وكو حران يهي أدان كو قدون سيي واكو قدون سيي كوب كان إن كالنت كوبات كوحدي كو قوليستا عاوة إله يتو أيان شعالهاي مركا جالو قدومي إيقو قدوم كوب كان قروح دبضان Thank you very much. وما سنتها محمد إسماعيل علي دمان أمة الصوماليات كوبكا قروحدو بدن عبد علي يا سوديبي صومالو دن وما سنتي إذكا إسكالي سيدا ربتين إذكا تلمامتا إسكالي waxaana la joogo suldaan cabduqaadir eekisaana la joogo oo hadda noo yimid waana ku mahadsan yahay imaashaha uu naga soo qayb galay
koobkan magaciisa waxaan hadeertaan u yeeraynaa waqtiga oo ciriiri nagu ah awgiis waxaan u yeeraynaa walaalkeen musharaxa inaan siino maanta naga soo qaybgalaya si xaaskiisa barnaamijka ay nagala soo qaybgalaya inaan siino maxamed cabdirasaaq abuukar inaan siino dhowr daqiiqood si uu noola hadal maxamed ku soo dhawow sharaf bay noo tahay inaan nolol soo qoobi gashay dhammaantiin reer Toronto waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin waday message laakiin message-ka ka hor waxaan jeclahay inaan u hambalyeeyo dhammaan labada kooxood kooxda ururka Today dhammaan qabanqaabiyaasha meeshaan ka soo qaatay waxaad tusteen in Soomaaliya ay suuragal tahay inaa idinkoo midaysan aad wada qabsataan waxaa idinkugu wacaynaa sidoo kale inaa walaalihiin Soomaaliya joogana horumarkaan aad la wadaagtaan oo tusaale u noqotaan oo aad tustaan inay suuragal tahay in Soomaali ay midowdo oo gobonnimadeeda ay soo ceshato oo midnimadeeda ay ku dadaasho aad iyo aad u mahadsantiin thank you waxaa halkan ugu jeedaa baadiyow oo maaragtay asagana sharaf inoo tahay inuu nagala soo qaybgalo bismillaahi raxmaani raxiim aadan idin salaamaya dhammaantiin waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan inta cayaartan soo qabanqaabisay macallimiinta iyo dadkii hore cayaarta cayaari jiray dhalinyarada cusub oo hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo qolooyinka koobka qaatan waxaan leeyahay hambalyo gaar ah waa maasantii wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Good evening everybody good evening good evening good evening This is Avtar Minhas, your new trustee for Etobicoke North. I congratulate all of you this Somali week. I've been coming to this tournament for years and years, and you know me, all friendly with your community for long time. And then I thank you, all of you. Hello, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. I just wanted to say that, I was speaking with someone in the community last weekend, and we were talking about this tournament. And somebody said to me, sports is great because it brings the community together. That's what's special about tonight, is that tonight we brought the Somali community together, not just here in Toronto, but from around the world. So I wanted to congratulate the organizers, first of all, the Toronto Development Association of Youth. I'd like to thank all those who helped put this together, congratulate the teams, and congratulate all of you. This tournament speaks to the strength of our community, of the Somali community. Thank you very much. Somalia Hanalato. Assalamu alaikum Soomaalida dhammaan meel kasta joogtaan. Waxaa si sharaf leh maanta noogu dhamaaday garoonka weyn Centennial Park 2016 ciyaarihii lagu qabanayay oo ay ka soo qayb galeen teamka Europe sidoo kale teamka North America nooga imaaday iyo anagoo halkan oo Canada ah team badan nooga soo qayb galeen waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan media ka soo qayb galay khaasatan Maxamed Daahir muuqaalka TV waxaan leeyahay dhammaan Soomaalida meel kasta joogtaan waxa idin ka codsanaynaa inaad nala gacan qabataan ururkan iyo waxa uu wado kolay waxaan idin tusinay sida aan waxa u qabanayno wanaaga ay idin soo gudbinayno wadooyinka ay idin xirnay waxaan filaynaa sanadka dambena hadduu aleedmo inaan ka sii weynaano oo aan ka sii fiicnaano laakiin gacmo wada jir bay ku qabtaan waxaan u baahannahay khaasatan dhalinyarada gal Canada dhalinyarada reer Toronto original all OGs waxaan idin leeyahay dhammaantiinaba waa idin baahanahay waa anigoo Cabdikariin Cumar waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin Somali Week 2016 muuqaalka TV ha noolaado FIFA Bakaro salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Voice of America iyo daanduraysa inaad dhegaysataan ama daawataan barnaamijyadooda muuqaalka ah mar kale ayay tahay Toronto mid ay ku faanto hawsha wanaagsan ee ay Today inoo hayaan waana inay gabi ahaanba bogaadinaa waa mahadsantiin mahadsanid maxamed cabdulaahi siduu idin sheegayna dad badan baa ka soo qayb qaatay maanta halkan oo dhammaantood ka tirsan beesha Soomaalida sharaf iyo qiimo ku leh iyo dabcan dadka Soomaalida ku dhow aan ka fogeyn sida xildhibaanadii aan hore u sheegnay haddaba waxa kale oo aan jeclahay inaan dadweynaha la socodsiino in koobka ciyaaraha la qabanayo oo hadda socda magacooda lagu dhiibayo ilaahay u naxariistay marxuum Faarax Waheliye Cadow Sandiko oo wada garanaysaan ahaana haliyay ciyaaraha Soomaaliya gaarsiiyay caalamka daafiisa
faarax weheliye wuxuu ahaa runtii nin taariikh ku leh ummadda soomaalida guud ahaan gaar ahaan dhinaca kubadda cagta isagoo ururada fiba iyo afaba iyo ururo badan oo caalami ah ka ahaa mimbar ama xubin ka ahaa wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey oo afrikaan ah oo meelo badan tagay ama ka qayb qaatay dhowaanna markii ay dhibaatadu ka dhacday ururka fifa ee kubadda cagta adduunka oo dhan waxay xusuustaan hadalladii iyo buwaagtii uu qoray faarax weheliye cadow sandiko haddaba koobka ayaan leenahay hambalyo lagu hambalyanayo midda kale koobka kale cabdifataax karolo oo koobka odayaasha ah cabdifataax karolo waxau ahaa nin dhalinyaro oo soomaaliyeed oo reer toronto oo ciyaartooy ah ka gadaalna u gudbay dhinaca galbeedka dhowaanna geeriyooday cabdifataax karolo ayaa koobkaasna loogu talagalay waa koobka odayaasha sidoo kale ninka caankaa oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida waa cabdiraxmaan tacbaan oo aad wada garanaysaan ciyaartooy ama laacib caan ahna ayaa waxaa loogu talagalay koobka odayaasha magaciisa in lagu dhiibo haddaba koobkan ama koobabkan dhiibaya maxay kala yihiin waxaa jira magaalada london in ay degan tahay ummad soomaaliya oo aad u badan dadkaasi waxay ka kala socdaan ama ka kala tirsan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida si kastaba arrintu ahaatee wafdi baa ka socda sanad walba yimaado oo ay ka mid yihiin maxamed ismaaciil cali cawiye maalin horseed iyo sidoo kale daahir cali kulmiye waa alfatras oo la garanaysaan saaxiibkii cabdi axmed ayaan isna ka fogeyn sidoo kale macalinka weyn qariidi waxa uu ka socdaa minnesota minneapolis uu ka yimid iyo dad kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin kooxaha washington raggii caanka ku ahaa oo laacibinta uu ka mid ahaa khalifiiko iyo ciyaartooy kaloo faraha badnaa dhammaantoodna waxaan leenahay hambalyo haddaba waxaan jeclaha in aan fursadda ku wareejiyo axmed cabdikariin walaayo deeta cantar oo ah guddoomiyaha Somali Week. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliya ay toos horta isku tiirsanaada runaniga ahaata wadajirkiina iyo dadnimadiina iyo shakhsiyadiina meesha rabnaa mari karnaa dhulkeenna ka barwaaqa badan laakiin haddaa isu kalsoonaana waay dhalinyaro aan isu kalsoonaana aan midowno aan mid noqonno waxaa nala fadhiya macallin qariidee nala fadhiyo xildhibaankeenna qaaligaa nala fadhiyo axmed xuseen nala fadhiyo waxaa nala fadhiya safiiro badan oo ay ka mid yahay safiir axmed ciise cawad
isasuran iswada jecel samirkuna u badan yahay isasuran iswada jecel samirkuna u badan yahay rabbi baa inagu simay subantan jeclaaye sanqaroorka dheeriyo sunniyaasha dhinacyada sanqaroorka dheeriyo sunniyaasha dhinacyada sadir baa ku dhameeye sida geeyo ugubey waan kugu saawiyayaa waan kugu saawiyayaa waan kugu saawiyayaa waan kugu saawiyayaa gabaryahay sidaydaba sanadada markaydu caday kaa dhulsumaysaaye gabaryahay sidaydaba sanadada markaydu caday kaa dhulsumaysaaye jacaysaaqayberko sadriyo qalbiga tegaysaa eogayay ayaad igu samaysay jacaysaaqayberko sadriyo qalbiga tegaysaa eogayay ayaad igu samaysay Subantan jeclaaye masexdee la soco sabadhexe habeenkii masexdee la soco sabadhexe habeenkii urdadan kaagarsanaya subantan jeclaaye